war kalamaanay toddobaadka xorriyadda lagu jiraaye waxaan odhan lahaa markaan gumaystii dirniya daalinkiiyo tuuggi eed calanyow noo daahirtaan roobsan noo da'aye degellada hargayse iyo xamar lamada daamoodba waatay daruuraha xornimo wada darrooreene soomaali baa deeqday oo kuu dabaaldegaye dugsi dhaxanta celiyaadta hool lagu dugaalaaye barna daban hal weyn baa tihiyo hoos dallaalnimahe daawashada cidhkan kugu matelay duhur dharaareede waxaa dunida ugu muuqataa dayax sidiisiiye gobonnimo intii doonaysay ee tii gonnimo diiddan ee sharaf dabninimo raadin baa darajo siisaaye qalbiguu jacaylkaagu degay kuna duxayaaye inkastoy daruufana jiraan daalna naga muuqdo mar kastaba difaacaaga adigow diyaarnahaye daa'inkii ilaah baan baryee deeqsiga ahaaye inta dulida nugu nool yahay laga dareeraayo dusha noo surnow oo waqaan darajadaa liicin waranna waxaan su'aalay bacadyaalka caydhe bele iyo la nool silic xurriyad loogu baaqo horta bilan ma haystaan mise way iska beenbeen war lixdankii inaan xorownay lama xaqiri karee annagu waxaan odhan lahaa xusulduubka maalmahan socdayoo shacabka xuurtooday calankan maryaha lagu xardhee lala xarraamaayo dadka yaga xawaaraynayoo wada xamaasaysan hooyada xibnaha daalisiyo xuudka soconaya dharaartan xornimo qaadanna xaadir loo yahaye ayaamahan xuskoodaa waddani ku xarragoodaahe xisbi ka hor yimaad iyo lawaaxayn mucaaradahe xarta iyo wadaadkuba allay ku xamdinayeene hurda xalay nin seexdoo ma jiro xuuradeed galay ciidankii xeryaha joogay baa xawli soo kacaye iyagoo xambaarsaday hubkoo xidhan diriiskooda xabbadaha cirkaa loo riday ku xafladeeyeene inkastoo xan lama huursaday xoonkii laga raystay xayi uma istaageen xig baa noo harsoon weliye gumaystaha allow naga xoray xaakim baa tahay gumaystaha allow naga xoray xaakim baa tahay ma uu yidhi war abwaan markii xaaji banaadir oo xafladdii xorriyadda lagu qabtay madaxtooyada ka gabiyey wuxuu yidhi geel god wariiri madeeqo qof gubtay haax magafaayo goos buka daanga mashiido waar aniguna waxaan maqli jiray geela markuu daraaran yahay laba nin duugtaaye laba nin duugtaaye laba nin duugtaa war anna waxaa maqli jiray baabuur dareeraw ma karaw don maracaw ani baddaa kidabaaladee diileya cadale ar waxaad ka tagta dulaysatee siyaasaduu idullaysatee ciidaaweeye waradhaay war ma haysaane waa 26kii juun goormaan ladnaanaye lixdankii lugooyadii nadaysaye 26kii juun aryaadhaha nin odayahoo soomaalida dhaqan xumadeeda iyo siday xurriyaddii ugu dheeshay la yaaban heeskaan maqlay haddaan 60kii ladnaanay goorma balaayadu nahasha war cabdillow ninkaa odagaa iyo waxgaradka badankiisu waxay la yaaban yihiin dad 60 sannadood xor ahaa sidan ma u eg yihiin waa iska qabya qoraal war soomaalida dadka fakera qaar baa waxay aaminsan yihiin 9kii sano oo dawladdii rayidka ahayd oo dimuqraadiga ahayd oo la soo doora jiray ay jirtay inay xor ahayd qaarna waxay aaminsan yihiin 22kii sanoo kacaankoo 9kaa lagu daray 30kaa sano inay soomaalidu xor ahayd laakiin cid wax garata oo aaminsan 61 sano inaan xornahay ma jirto war dad kalena waxay qabaan xurriyadda 19 inay bilaabantay ilaan qof waliba siduu doonu u dhaqmay waar walla weynay waxba garan maysaane xaqiiqadu waxay tahay xurriyadda Soomaaliland 18 May 19 inay bilaabantay warwaaqda Soomaaliland 26kii Juun ayay Ingiriiska xurriyaddeeda ka qaadatay waa maxay 19 kanaad sheegaysaa waa arinta waddan xulood bay ku joogtay warnimayow gabar Soomaaliyeed oo qurba jooga ayaa waxa la sheegay sanad kasta inay xusto dhalashadii hooyadeedna waxaa la yidhi ayadoo yar bay dhimatay dadka xafladda ka soo qayb galana maxaad xusaysaa markay dhahaan waxay ku jawaabtaa dhalashadii hooyada ee xusaya aaway hooyo xafladda ugama jeednay markay dhahaanna mar horay dhimatay bay tiraa marka xuska xurriyadda Soomaalida iyo xafladda gabadhaas dhigato waa isku mid baa la yidhi warwarka waa iga dhex gasheen xalay xafladdii 26 Juun ayaa madaxtooyada ka dhacday ma madaxtooyada Soomaaliland ba war 60kii dadka u faraxsan calansaarkii ayaa guhaad cabdigahayr gabiyey wuxuuna yidhi good iyo aabas bas bedelay garanna maysaane gocandhaa idiin aasan iyo miciga maareeye goraygii dhashii buu ka tegey guubiska ahaaye taraalkaama
guurina halkanuu guud madow yahay. aryadhaha abwaan cabdulaahi suldaanti macadde allah u naxariisteena maalintaas wuxuu yidhi calankaynu sugaynee sahankiisa ahaynow samada kii u ekaayee xidigaha mid la siiyow saaxirkii kala guurnaye sarreeyow ma nusqaamow aan sidou yaha eegne kaa nasiibkana saare war laydinma wadi karo waa ku soo boodaysaane xal madaxweyne farmaajo ka qudbeeya xafladda xuska 26 juun wuxuu yidhi aabbahay wuxuu ka mid ahaa halgamayaashii SYL oo xurriyadda dhaliyey asagoo gumaysiga u xiranaana xurriyaddu dhalatay hooyadayna halgamayaashii SYL ay ka mid ahayduu yidhi marka halkaas waxaa iiga caddaatay madaxweynuhunu SYL ka mid ahaa yaa maana yaabin sawirka madaxweynuhu maalintii xurriyadda meel kasta lagu dhajiya mugaan arkay xumbaal xabadaanan ogeyna madaxweynuhu SYL ka mid ahaay war waxa la yidhi awrka dambe awrka hore ayuu saanqaadkiisa leeyahay madaxweyne maxamed siyaad barre allah u naxariistee 13kii SYL ayuu sawirkiisa 14 kaga dhigay marka hadda madaxweyne farmaajona ma 15 buu kaga dhigi rabaa war cabdiraxmaan aadan cusmaan cabdiraxmaan kambaal wuxuu yidhi buugii qalinjibinta madaxweyne farmaajo wuxuu ku qoray SYL inaysan xorriyad u soo halgamin oo ay gumaystaha la shaqaynayeen war kambaale waa qaran dumise madaxweynaha miyaa ogaa inuu madaxweyne noqonayo markuu warkaan qoray war xalay madaxweynuhu markuu xuska xorriyadda ka hadlayey aad buu u faraxsanaa waana kaftamay wuxuuna yidhi khadiijo diiriyag afkay soo daboolatay maxaa loo sheegay koroonihii waa baxay oo hadda koroonihii madaxweynuhu madikiraatu dalka uga saaray nin garaadda u qoray war madaxweynuhu xalay markuu halgankii Soomaalida ka sheekaynayay wuxuu yidhi SYL hogaaminaysay halgankii xorriyadda halgankii waqooyina waxaa hogaaminayay SNL iyo USC armaqal ilaa USC da dadku 90kii ay u maleeyaan tan 60kii ayba halgamaysa miya warwarka iga dhaxgelinina wuxuu kaloo sheegay madaxweynuhu meel kasta inuu hadda ka socdo kacdoon midnimo doona waxaana ii yimid oo yiri dhalinyaro waqooyi ka timid dhalinyarada ii yimaadeenna waxay ii sheegeen oo yiri dalkan inuu yahay dal khayraad badan dadkiisuna ka baahan yihiin ariya hadda cabdi kuusoma waxaad naga dhaadhicihe dhalinyara madaxweynaha u sheegta khayraadka waddanka ku jira warwar ma haysaana madaxtooyada Soomaaliland xalay xaflad weyn baa ka dhacday war kuwina LSF ma ka soo qayb gashay warwarka iga dhaxgelin ay dhageyso madaxweyne Muuse Biixine khudbad dheer buu ka jeediyey xataa waa dhinac taagnaa wiilkii khudbadda madaxweynaha afdhagoolka u rogi jiray Soomaaliya la midoobayna miyuu yidhi madaxweyne Muuse Biixine wuxuu sheegay 26 Juun koonfur inaysan shaqo ku lahayn inay xusaanna ay deelqaaf ku tahay gumaystiga Ingiriiska aniga Soomaaliland ku xoriyay miyuu yiri xorriyadooduna kowda luuliyay ahaydee ha sugtaan buu yidhi war madaxweyne Muuse Biixi wuxuu intaa ku daray 4 sano la soo dhaafay lacag gaaraysa 60 milyan oo caalamka Soomaaliland lagu deeqi jiray farmaajo ka xayiray buu yidhi wax dawladda xamar soo marayna xaaraan bay naga yihiin buu yidhi war madaxweyne Muuse Biixi wuxuu kale u yidhi nidaamka caalamka ku dhaqmo annagu waa dhammaystiray buu yidhi dal muqdaqumbaaldii oo madax bannaana waynu nahay oo waynu kala guurroos kuma laaban karra buu yidhi war madaxweyne Muuse Biixi waxaa kaluu sheegay tusaale waxa ugu filan Soomaaliya dekada berbera xafladii ka dhacday shalay hawsheeda markii la bilaabayayna dawladda Soomaaliya dagaal adag bay nala gashay hase yeeshee qayr Allah siiye madaxweynaha hore Siilaanyo umuu toojin buu yidhi wararta madaxweyne farmaajo madaxweynayaashii ka horreeyay waa la dagaalamaayeen Muuse Biixi kuwii ka horreeyay miyuu u ducaynayaa adar wala weynay Soomaaliland way shaqaafisaniyo war anigu Soomaaliland inay goodo ila doonayo waxaan ku ogaaday xafladii lagu qabtay fiilla Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi laguma macsuumin waaqlow inuu diiday iyo inaan lagu casuumin maadaa kala hela warnimayo warmaysiin warbaahinta madax bannaan ee Soomaaliya markii loo diiday inay ka qayb galaan xafladii fiilla Soomaaliya ee xurriyadda lagu dabaaldegay waxay leef ka wada dhigeen xafladii Soomaaliland ee madaxtooyada ka dhaceysay hayehe bun haddii la waayo bedelkiisa la helaa miyay dhaheen war geel god wariiri madeeqa lagu yiri war waxay dhaheen farmaajo haddii la waayo Muuse Biixi la helaa war ma haysiina xalay dhalinyaro boorama ku xusaysay 26 Juun oo calanka Soomaaliya ku labisatay ayaa la xirxirayaa la yiri war kuwaas waa qarandib Soomaaliland jeelka linta ku cabeen war 26 Juun maalintii la xoroobay buu ahaa calankii la qaatana kan buluuga buu ahaa ama ma la wada xusa ama la wada tuuro war 26 Juun madaxweynaha Soomaaliland baa taariikh ahaan uga sheekay kara calankeedna lama ogola aryadaha calanka Soomaaliland 91 u bilowday wixii ka horeeyay haddaan la dhaafeen warka hore hal la wada qaato
war cabdulla oo garan may sida calanka Soomaaliland 19 uu ka horeeyay tawxiidana ku yaalo asxaabtii buu soo bilaabmay war wixii la soo maray cidna ma moogay waxaan dhihi lahaa waqooyiga guntaday oo xornimo idilka goobaya waxun bay hadda go'aan hayaan kana gadoodeene haddaan lagu gabood falin midnimo kama gadoomeene kala guurka labadeena reer eedu kala gaadhay hawgar qaado kii aan lahaa nabad ha gaareene isna godobta buunbuuniyaan gacalkay mooday war waxa la yiri dadka ruuxa garaaba hadii uu gaf sameeyo garawshow bixiyaaye kii kale dhibka geystay hadii aanu gamayna waxun sii go'anayo guddi saara qudhiiniyo sidee loo geliyaa gaari ma ka baxda adiga ma ku gashaa adiga talo ma ka godaa warwar ma haysiinee Soomaalida dhaqan fool xuma ku soo kordhay u fiirsada xaflad kasta oo la isugu yimaado waqtiga ku yar waxaan isla markii xafladu bilaabato ay bilaabaan soo gaabay hadalka waqtigu waa yariyay war waxa taas ugu wacan ballan la'aanta Soomaalida marka koowaad waqtigii lagu ballamay la isuma yimaado marka labaad qofkii mikrofoonka qabsada kama fuqo dadka hadlayana lama koobo musuqmaasuqa Soomaalidu lacag la xaday u taqaana waqtiga la lumiyo ka bilowdaa haliir wasiirka maaliyadda Soomaaliya Beyle wuxuu yiri Soomaalida oo dhan musuqmaasuq bay ku nool yihiin xataa mid shaqadiisa guto mushaar xalaal qaata lama helayo yiri aryaadaha waa tii hore loo yiri musuqmaasuq Soomaali waa meheradeedii war cabdulla Beyle wuxuu yiri Soomaaliya waa mashruuc laftiisa ama musuqmaasuqa aryaadaha warkaan hayga wareerinay waxa la yiri calanka wow cayaartuma anoon cidna ka cabsay calanka wow cayaartuma cidna anoon ka cabsay haye arhadaad hu sheegaysid cabdullow hargeysa uga ciyaarto arwa taasabu calanka uga ciyaarto war maxaad buu ka sheegaysaa afgooye ma tiraahdi war horta wala weynay xarar dheer calanka ma geen kartiin war balcad baan si tagi karin war shirkii ay u ballansanaayeen ra'iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada Addis Ababa ma loo wareejiyay oo loo ballansanaa sabti inuu magaalada Muqdisho ka furmo riyadii kale maana run noqoto waa baaqdaa la yiri laakiin waxa la yiri madaxdii maamul goboleedyada caaradkoodii waa yimid waana aqbaleen inay wada yimaadaan wardan iyo Axmed Madoobe hadda yimideen ma cid kala maqnaanaysa war cali gudlaaw iyo qorqor wali ma iimaana la yiri ma soo socdaa mise waa lagu dhagan yahay war lafta garay waa yimid la yiri hadii laga foqayna cid kale in lagu dhagayo ma layn maayo war maxalay dageen mise madaxtooyada war shir iyo siyaasad iyo khilaaf bad ka sheekaynaysaane xagga horumarka mar qura kama hadashaana barqad batuun wuxuu sheegay in beeshoodu fooqa ugu dheer hargeysa ka dhisanayso abaalkiina ay celinayaan war shirkadda daabshiilba waxay sheegtay guriga Soomaaliya ugu dheer inay Muqdisho ka dhisanayaan abaalkiina celinayaan aryaadaha war ma haysiina gobolka mudug baadiyihiisa eri cid u xareysan in dab lagu qabtaa qurjub laga dhigaa la yiri muga waxaan la yaabanahay dadka noocaas u dhaqmay hatta dugaagnimo waa dhaafeen maahino war dugaag arga neef iyo laba ka cuni lahaay ma gubeen war iskala saara idinku niyow war Jarmalka waxa la yiri nin Soomaaliya ayaa 3 qof ku dilay qaar kalena wuu dhaawacay war Jarmalka markaad sheegtay inuu mucaawino soo wadaan moodi war ma haysiine mooshinkii lagu riday xukuumadda Sweden waxa la yiri Soomaali baa qayb ka ahayd meeqa lacag ah loo qaybshay aryaadaha war ma haysiina saraakiisha ugu sareysa Mareykanka ee Minneapolis joogta Soomaaliya naqdeen oo yaa ku hurgufay war garaadada sharciga ku qaateen kuwaas Soomaaliya ma musuqa lagu bixiyaa waliba maasuqiyo in adeero war hadalka hataa kiisda wax musuqmaasuq waa la yiri war maxaa musuq ku diidaysaan wala weynay talana ma haysin war yaa hanadin والمسق لعنتي مقالة كون اسمي مايس أرجعكم